waxaa magaalada Edmonton maanta ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran oo ay soo abaabushay jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenaya iyo jaaliyadda Oromada. Ujeedaduna waxay ahayd in maanta ay dowladda Canada la tuso in ay awood ay u leeyihiin ay ku samayn karaan mudaharaad iyaga oo ka mudaharaadaya tacadiyada gumaystuhu uu ku samaynayo community-gaas ama jaaliyadahaas. waxaan halkan maanta mudaharaadka kula kulmay gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Edmonton mudane Cabdi Xirsi. mudaharaadkan waxaan doonayaa aniga ka socda Qoraxay Media inaan weydiiyo su'aalo. mudane Cabdi Xirsi kusoo dhawow runtii adaa mudan waxa weeye waxaa maanta ka dhacay magaalada mudaharaad kaasoo jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenaya ay qayb weyn ka qaadatay. mudaharaadkan sidee buu u dhacay oo sidee loo soo abaabulay? mudaharaadkan si fiican baa loo soo abaabulay sida uu socdo walow ka jaaliyadaha xilli dambe oo abaabulka lagu ahaa magaalada jaaliyadana way ka soo gashay waxaan iska kaashanay labada jaaliyadood Oromia iyo Ogaadeenaya si fiican baa kala leeyahay ugu socdaa ajandaha iyo mudaharaadkan uu ku xuseeyo oo saabsan weliba Itoobiya ugu haysay laakiin wuxuu hadda soo saaray waxay ku saabsan ardada Oromia maadaama aan nahay Canadian citizens maadaama aan nahay taxi payers in aan la hadalno codkanaga aan basho dowladda Canada codkanaga basho si ay u joojiso support markasta ay la soo taagan yihiin dhibaatooyin nooc walba dhac kufsi dil barakicin jublayn intaas oo kale lagu hayo marna aan ka tanaasuleynin xorriyaddii ay higsanayeen marna aan ka tanaasuleynin taa oo ogaadinaya ama salaadta su'aashaada ay ahayd waxaan shacabka reer Ogaadeenaya meel kasta oo jooga gaar ahaan Edmonton iyo Alberta war aan iska kacna fadhiga gumaysta waxa uu yahay waxaan sidoo war reer Ogaadeenaya sheeganaya halkan jooga in halkan ka cabsadaan abdi ilay adeega laga fududeeyo shacabkeena inay kumaado loo wakiishay inay halkan ka cabsadaan halka wada Kenya kana ma raaca inay dhahaan jijigana laga daawan karo sababta oo waxa looga xumaado shacabka Ogaadeenaya xagga dadka nima minted inaan qadrino gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenaya ee magaalada Edmonton waxaan anigoo bahda Qoraxay maanta halkan u taagan aad baan ugu mahadcelinayaa waqtiga fiican ee